layaab iyo amakaag aroos ogaaday in xaaskiisa uu nin yahay 12 maalmood kadib arooskooda. intaan u gudagelin sheekadan haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad na soo booqato waxaan ka codsanaynaa in aad nagu soo biirto maasan. aroos u dhashay dalka Indonesia ayaa ogaaday dhab ahaan in xaaskiisa ama afadiisa uu nin ahaa asalkiisa 12 maalmood kadib arooskooda ama aqalgalkooda. ninkan oo magaciisa lagu soo koobay AK ayaa xaaskiisa oo lagu magacaabo Adinda Kandi waxay isku barteen barta internetka ee Instagram muddo sanad ah kadib waxayna ku heshiiyeen in ay isguursadaan markii ay isla socdeen hal san. intii uu socday wada sheekaysigooda muddadii halka sano ahayd mar walba oo ay wada kulmayaan Adinda waxa ay soo qaadan jirtay indhashareer ama niqaab daboolaya guud ahaan wajigeeda wuxuuna ninkan la qiyaamayo u qaadan jiray astunaan. lamaanahan ayaa go'aansaday in ay isguursadaan muddo sanad ah kadib wada socodkooda waxayna isla garteen in xaflad yar lagu qabto guriga AK waxayna u sheegatay Adinda in aysan hadda lahayn wax qoys ah oo ka soo qayb galaya xafladan arooskooda balse AK ayaa ka shakiyay xaaskiisa cusub wax yar kadib markii ay aqal galeen 12 Abriil sanadkan aynu ku guda jirno ee 2024 waxayna markasta u sheegan jirtay in ay jirto xaalad caafimaad. waalidiinta Adinda oo markii dambe ogaaday sheekadan ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in ninkan Adinda la magac baxay oo markiisii hore ahaan jiray nin kaas oo bilaabay sanadkii 2020 in uu ka guuro raganimada oo uu u wareegsado dumarnimo. booliska oo arintan soo farageliyay markii dambe ayaa ogaaday in Adinda uu u dhaqmi jiray qaab dumar ah wuxuuna lahaa codka dumarka oo kale. haddii aad eegto sawirada arooskooda laga qaaday waxa uu og yahay ninkan Adinda la magac baxay dhab ahaan dumar. sanadihii u dambeeyay rag fara badan ayaa ka guuray raganimadooda waxayna doorteen in ay iska dhigaan dumar. qaar ayaa sameeyay qaliimo waaweyn oo ay ku muujinayaan xubnaha dumarka ayna ku tirtirayaan xubnihii hore ee Ilaahay u uumay ee raganimada caanka ku ahayd. qaarna waxa ay sameeyeen iyaga oo aan qalin gelin ayaa waxa ay xirtaan dharka dumarka kuna xaragoodaan waxayna baraha internetka ka shukaansadaan ninba ninka uu ka qurxan yahay kaas oo ay u arkaan in ay ku soo jiidan karaan muuqaalkooda cusub ee dumarnimada ee ay u guureen.